hore waa arkayseen marka sentaraladaasi waxaa la yidhi qaarkood saliid ay wadeen oo waxaa waaye dalka ayaa laga dhoofinayay wadamo kaloo darisa ayaana loo dhoofinaya laakiin waxaa gubay Gondar duleedkeeda ku gubay Amxaarada ayagoo dab qabadsiiya dhammaan gaadiidka gubanaya la arkay taasna waxay muujinaysaa caadooyada Soomaalida loo qabo inkastoo de ayagu ay ku xumeynayaan Abiy Ahmed iyo maamulkiisa haddana Soomaali xataa isxaan uma sameynayaan nimankan Amxaarada dagaal ay mar walba ay wadaan wax kastoo ayaga dhexdooda ama aagooda marana Soomaaliya iskale cid kale iskale ma dhahayse dab ay wada qabadsiinayaan marka halkaas qasaare baan ay Soomaalida ka soo gaaray dadkii halkaasi de baawrtooda ku gubatay waxaan leenahay Ilaahay bedel qeyr qaba hasiyo xaaladdu meel xun ay gaartay dowladka magaalada Gondar ayna dhibaatadaas ka dhacday inkastoo wali xaaladdu ay dintaa dhanka ay hadaan tagno dowlad deegaanka Soomaalida jabhadda ONLF ay ku baaqayso inay markaas hadda kadib ay go'aan ka soo saari doonaan maxaa la yiraahdaa go'aankii ay la galeen ama heshiiska la galeen 2018 dowladda Itoobiya inuu fashilmay haddana waxaa la arkay jabhadda qayb kale oo kamid ah oo dowlad deegaanka Soomaalida ku sugan oo ayagana u jawaabaya isla jabhaddii oo dhahayo maxaa la yiraahdaa anagu nabad ayaan qabnaa jabhaddu wax dhibaato ma qabto abiyana waxba kuma qabno dhibaato Mustafa Cagjar iyo dowlad deegaankana isfahansanahay taasoo muujinayso in jabhadda la kala qaybiyay oo markaas sida ay doonayeen nimanka la yiraahdo Cagjar iyo Abiy Ahmed ay dhacday oo hadda la leeyahay way kala quban yihiin oo laba group ay u kala jabeen groupkan waxaa la sheegay inay Abiy Ahmed iyo dhaqaale ay ka helaan iyo nimanka lagu magacaabo Mustafa Cagjar oo ayna ku qanacsaneen group kale ee markaas hadlay marka waxay yiraahdaan anagu sida aan soo walba noqonaba nabad ayaan qabnaa wax dhibaatana kuma qabno dowlad deegaanka Soomaalida iyo xisbiga BBA barwaaqo oo hogaamiya Abiy Ahmed intaba waa isfahansanahay ay leeyihiin taasna wixii ka soo kordho iyo arrintaasi oo soo gudbi doonaa iyo falqayn doona wararkeena dambe step ay wararku soo baxayaan marka haddii aan tagno magaalada Muqdisho waxaa la leeyahay guux ayaa ka jiro oo ku saabsan maxaa la yiraahdaa xilka oo hayo Xamse Cabdi Barre iyagoo dadka qaar ay leeyihiin waa in xilka laga qaadaa oo baarlamaanka mooshinno badan isdaba jooga maalmii la soo dhaafay ay wadeen inkastoo mooshinkaas uu guuleysan waayay haddana waxaa dhici karta inuu dib u soo laabto kulamada dambe ee baarlamaanka walo baarlamaanka hadda fasax uu ku jiro bisha Ramadaan awgeeda waa arki doonaa wixii ka soo kordha haddii kulamo yeeshaan haddii markaas Xamse Barre mar kale mooshin laga keeno barnaamij hargare meel fog gaarsiiyay intaan barnaamij lamida kulan doona waxaan leenahay fi amaanillah